هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد تلك شهادة الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نبدأ اليوم بكتاب البيقونية، الدرس الأول مع أخونا الشيخ نور عبد الله أبو فيصل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. maantu waxaan mar kale dib u bilaabeynaa, waa markii labaad ama saddexaad kitaabkan risaaladan ama manduumadan yar, almanduumatu albayquniya, oo aan dhowr jeer hore aan u akrinay. marka walaaluhu marba kuwana way cusub yihiin, dhul iska qurbo ahna waan joognaa. marka waxaan ugu kalifayaa in risaaladan yarta aan dib u akrinay mar walba, sida kutubta kale culum alxadiidka waan u akrinay, inaan walaaluhu markay soo codsadaan masaajidka inaan dib u bilaawno. waxaan rabaa marka horodhaca yar kitaabku inaan ka bixino, aan badnayn. kitaabkan waa la sharxay. kitaabka markaysa wuxuu ka mid yahay kutubta ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey muwaafaqada. dad badan ama culimo aada u badan ayaa dabcan sharaxday, oo min kuwaar alculamaa iyo kuwa arday ah intaba way sharxeen. culimadeena soomaalidana ayagu way sharxeen in badan, oo dad badanaa sharxay oo culimo ahaa sharaxday. marka waxaan rabaa inaan marka aan bal tilmaamo yar aan ka bixino kitaabka, lianna sida caadiga ay tahay ama sida ardaydu ay wada fahansan yihiin, waxaa la yidhaahdaa in almubaadi kula fanin 10. marka cilmi waliba oo la bilaabo ibnulmuqir siduu lahaa waa 10. marka waa in macnihii sharaxiisa xadkiisa laga hadlo iyo mowduuciisa, uma thamara iyo fadligiisa iyo nisbada iyo waadica qofka dejiyey. marka adigu 10 macnihii uu noocaas kale u tiriyey. manduuma asalkeedu waxaa waaye waa wax la nadmiyey. nadmiga iyo shicirkana way kala duwan yihiin. manduumaadka waa iska afarey, ninkii wax yaqaanaba uu tuuran karo. waxaa leeyahay ximaaru shucaraa. dad badanaa iska tuurta manduumaadka, oo afareyda nin walba waa tuuran karayaa, un macnihii miisaankii uu ka socday un la ilaaliyo. saa darteed manduumadu waa wax hore u jiriyey oo la nadmiyey. shacirkana waa qof uu bilaabay, farqigaasa udhexeeya. miisaanka uu ku socdo
istafcala 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 saas oo kale in gabayga laga dhigo oo afar 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 isu raaco saasaa micnihii asalkiisa uu yahay. marka manduuma nadmigu waa wax hore u jiray. ilan hadda manduumat lbayquniya markii lagu leeyahay culuum alxadiid sheekan hortiisa ayuu jiray, laakiin isagu muxuu sameeyey? isagu waa nadmiyey. sheekhu magaciisa waxaa la yihahdaa cumar ibnu maxamed ibnu fatuux adimashaqi ashaafici ayaa micnihii isagu la yidhaahdaa. marka naadimkan oo kitaabka ah isagu wuxuu magaciisu cafwan aan meesha ku laabto, waxaa la yihahdaa طaha ibnu maxamed ibnu fatuux albayquni. labadaasba magacba waa la yiri. magaca hore ee ahaa cumar ibnu maxamed ibnu fatuux adimashaqi ashaafici, xaashiyada naadimka kutubta qaar ayaa saa lagu sheegay. magacan dambena culimadu way leeyihiin labada magacba micnihii waa la yihahdaa. cilmigan culum wuxuu ka tarjuman yahay waa culuum اlxadiid ama musطalax اlxadiid, waxaa doontaba micnihii dheh. labada magacba isma diidaayo, wuxuu hoos imaanayaa un culumta wasaa'ilka la yiraahdo ayuu ka mid yahay, waana min ashraf اlculuum sida culimmadu inta badan ay tilmaamaan. culuum alxadiid ninka tafsiiriga ah kama mara, oo isagu waa u daliilsadaa. tafsiirka markii la joogo sanadkuu sheegaa, waa u baahan yahay yani waxaa u baahan ninka mufasirka ah. ninka caqiidada wax ka qoraaya isagu waa u baahan yahay. nuxaadku way u baahan yihiin oo waa inay xadiid mara qaar tusaale ku bixiyaan. culuum alxadiid furuuntoo dhan waa usoo hoosgalaya, waana min ashraf alculuumi sida ibnu qayim aljawsi raxmat ullaahi calayhi isaga naftiisa iyo culimo kaleba ay tilmaameen. marka ibnu jawsi fawaa'idka ayuu ku sheegaya. cilmigan wuxuu difaacayaa sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam. xadiidka mutawatirka ah wuxuu leeyahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam, man kadaba calaya mutacamidan, ninkii aniga si qasid ah igu been abuurta, naarta meeluu ku leeyahay ha u diyaar garoobo. marka waxaa loo baahan yahay qofka muslimka ah inuu barto culumtan. waxaa ka ratibmaya cilmu rijaal, jarx wa tacdiilkii, waxaasoo dhan way hoos imaanayaan. waxaa loo baahan yahay qof walba muslim ah oo raba inuu xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam barto, inuu marka hore horta bal u ogaado culeyska uu leeyahay in nabiga lagu been abuurto calayhi salaatu wasalaam. waa in marka culuum alxadiid la barto, la ogaado khatartu meesha ka imaanaysa inay tahay haddii nabiga lagu been abuurto. ibnu xasam wuxuu leeyahay sanad caaliya in la raadiyo. ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ku khaas yeelay ummaddan yani saa'ir اlumam markii loo fiiriyo ummadihii kale, khasa allahu hadihi اlumma can saa'ir اlumam, saasuu leeyahay yani saa'iri alumam. ilaahay subxaanaه wa tacaala markaan ummatu sanad ayuu ka dhigay. cabdullahi mubaarak wuxuu leeyahy hadduusan sanad jirin, qof waliba waxa uu doono ayuu iska sheegi lahaa. saa darteeda micnihii nagama qarsoona qof waliba caaqil ah oo cilmi raadinaya, cilmigan fadliga uu leeyahay iyo makaanka uu ka joogo fi sharci اlmutahiri اlxaniif. ida alinsaanu khuliqa dhaluuman jahuula. marka waa inuusan xadgudbin ay u ogaado fadliga uu leeyahay culuum alxadiid. maxaa ka tiro badan maanta axaadiid mawduucaat ama xadiidka daciifaadka ah? maxaa ka tiro badan
dadku inay maalin walba sheegaan waxaan jirin. ahamiyada fankan uu leeyahay waxaa ka mid ah cilmi usuul اlxadiid. waxaa waaye waxay u khidmeyneysaa sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam, sidaan hore u sheegay, in macnihii ay ku tilmaanto xadiidka haabitka ah iyo midka aan sugnayn ama dacfiga uu ku jiro sanadkiisa ama matnigiisaba inuu kuu sheego. saa darteed cabdullaahi ibn mubaarak hadal kale uu lahaa tadhiib lkamaalka ayaa lagu soo guuriyaa khatiibna jaamic alakhlaaq aruwaat wa aadaab asaamic bisanad laa ba'sa bihi uu kusoo gudbiyaa laysa jawdat اlxadiiثi fi qurbi اlisnaad walakin jawdat اlxadiiثi sixatu rijaalin. markaad doonaysa xadiid inaad ku raaxaysato, bal adigu fiiri quality-ga waa rijaasha. waxaa laga yaaba xadiidka matnigiisa inuu caadi ku noqdo uu fiican yahay, markii la isfiiriyo qofki inuu yidhaahdo maasha allah xadiidkan waa xadiid saxa, laakiin waa xagga matniga uu fiiriyey. matnigiisa inuu ishaystaa laga yaaba, lakin sanadkiisa dacfiga uu ku jiro. waana hadalka bimacnaa isaga uu tilmaamayo. alxaafid ibn xajar alcasqalaani raxmat ullaahi calayhi isagu tahdiib ulkamaalka naftiisa ayaa loogu soo guuriyaa. wuxuu leeyahay kitaabka nukat ayaan ula jeedaa ayaa loogu soo guuriyaa. tadhiibkana qowl ka mid ah hadalkaasi waa lagu keenaa oo xaafid ibnu qutayba hadalkiisii hadal la mid ah oo ibnu xajar naftiisa uu leeyahay. ibnu xajar alcasqalaani hadalka nukatka fi kitaabka ibn salax loogu soo guuriyo wuxuu leeyahay calى qowli xaafid ibn salax can اlcilmi اlxadiiثi biana huwa min akthar اlculuumi tawallujan ay dukuula fi funuuniha. waana hadalkaa goordha waan isoo hormariyey. cilmigan oo cilmu lxadiidka la yihahdo fan walbaa soo galaayo. marka walmuraad biculuum اlxadiid culuumka markuu ka hadlayo culuum sharciya ayaa loola jeeda. culuum shareeca oo dhan sida culuum algaaya culuumta la yihaahdo waxaa waaye waxaa ku gaarsinaya culuum alwasaa'il. marka atafsiiru walxadiidu walfiqhi wa inamaa saara aktharu kulligood way u baahan yihiin. wax ka kaaftoomaya lama arka cilmigan culuum alxadiidka. saa darteeda naadimka alxaafid suyuuti raxmat ullaahi calayhi alfiyadiisa uu gabay kaga tiriyey safxada 3 cilmu اlxadiiثi duu qawaaniina tuxad yudraa bihi axwaalu اlmatni wasanad fadanika almawduucu wاlmaqsuudu an yucrafa almaqbulu wاlmarduudu. hadalkaasu yani imaam suyuuti raxmat ullahi calayh yani uu alfiyada kusoo gudbiyey. cilmu lxadiida marka waa yani qawaaniintiiyu ku xadeynaya. waxaana lagu kala garanayaa yudraa biha axwaalu matnin wa sanadin. maxaa lagu gartaa sida luqatan wa islaaxan mar dhow noo imaan doonto. cilmu lxadiid waxaa lagu kala gartaa un axwaasha sanadka iyo matniga. marka fadanika almawduucu wاlmaqsuudu an yucrafa almaqbulu wاlmarduud. in la kala garto xadiidka maqbuulka ah xadiidka marduudka. min aqsaami almaqbuli wاlmarduudi culamada way qeybinayeen aydan. axaadiiث maqbul waa xadiidka صaxiixa ah, صaxiix lidaatihi, صaxiix ligayrihi, xasan lidaatihi iyo xasan ligayrihi. wa ama aqsaam yani kuwan marduudka ah waxaa waaye culamada qaara ilaa dhowr 60 gaarsanaya, qaara 70 gaarsanaya ay aqsaamtooda bimacnaa way tiro badan yihiin. wuxuu leeyahay yaxya ibnu saciid alqaطaan raxmat ullaahi calayhi sida khatiib jaamic uu ku soo saaray bisanadin xasan. isagana wuxuu leeyahay raxmat ullaahi calayhi laa tandur ila اlxadiiثi xadiidka ha fiirinin walaakin undur ila isnaad. xadiidka matnigiisa waxaa laga yaabaa saan mar dhow ku tilmaamay inuu is haysto oo markaad fiiriso xadaثanaa fulan akhbaranaa xadaثanaa xmaad ibn usama burayd ibn cabdulaahi can abi burda can abi musa alashcari can الnabiy sal اllahu alayh wasalam inuu sanadka micnihiisa isu haysto ayaa marka hore la fiiriyaa. xadiidka hadda bukhaariga wuxuu kusoo saaraya kitaab اlcilmi maalan ayuu kusoo saaraa. ayib waa xadiidka abi musa alashcari. abu musa alashcari min tihaama ayuu ahaa, min culamaء tihaama yemen
kuufana sanad kale ku lahaa, marka labadaba waa macquul. sanadka marka meesha kore ximaadka aan soo tilmaamay ximaad ibnu zayd iyo ximaad ibnu saamay culimada mashaayikh al-Bukhari iyo Muslim in la kala garto oo markaas sanadka bilowgiisa ilaa xadiidka hadii soo mucallaqaadka uu san ahayn la xadfin mucallaqan waa imaan doonaay sheekh hadalkii wuxuu ka soo bilaabayaa sheekhiisii uu ka bilaabaya marka sheekhiisa markuu ka bilaabo saas macnihiin inuu u sheego wuxuu leeyahay marka fiirinin لا تنظر إلى الحديث حديث كافيرين ولكن وحليه انظر إلى الإسناد سند كفيري وليه فإن صح الإسناد حديث كسند كيس صح أو نقضه وإلا فلا تغتر بالحديث إذا لم يصح الإسناد مرجع حديثك يسون كل ذكرين هكذا ذكرمين سند كهكذا ذكرمين مر هذا سن إسناد كصحاحين وانا كل شيء خطيب جامع عيسى ayuu kusoo saaraa juska labaad taqriiban 1336 meelahaas iyo safxado badan oo kusoo celceliya hadalka aan tilmaamay mar dhow ee uu yiri ninka la yiraahdo al-Haafid ibn Qutayba ibn Sa'id wad ogtihiin imaam Muslim tiis wax uu ka wariya laysa wuxuu leeyahay li ummati min al-umam isnaadu ka isnaadihim yani hadhihi al-umma ummadana siday sanadku leedahay يعني أمضيه هو أملهن رجل عن رجل وثقة عن ثقة نن وحكوري أما قفله كالسوني هاي أو قفله كالسوني وحكوري حتى يبلغ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى سنة كسوء الصعود أوجار النبي صحابتيسا ومركا أسقى اللغو عدايو بذلك الصحيح والسقيم والمتصل والمنقطع والمدلس والسليم in lagu kala cadeeyo marka mudalliska maraasiisha waa waxyaalaha ugu adag yani inta badan marka meelo markaas maraasiisho iyo mudalliska meelaha qaar way dib badan yihiin marka oo saxaabi yar iyo wax lagu warinayo kale طيب marka wuxuu leeyahay Haafid ibn Hajar hadal uu ziyaadiyay ayaa jirta wuxuu leeyahay al-Haafid ibn Hajar aydan cilmigan waxa u baahan dadka aqoonta markaan leenahay waxa way waa al-ulumta dhan ayaa horta loo sameeyay laakiin baabka markii la joogo al-asmaa wa sifaat wal bahthu ay bahthiga wal jazaa wal marinta wal jannatu wan nar wa ghayriha min umur al-i'tiqad wa usoo galaya kutubta aqoonta marka oo laga alifayna baabkeeda waa u badan yahay al-iman ibn abi ubayda oo kale ibn abi shayba al-arsh oo kale asmaa wa sifaat al-bayhaqi الرد على الجهمية وسنة أبي عاصم وسنة الخلال وسنة عبد الله بن أحمد الإبانة الكبرى لابن البطة وشرح أصول اعتقاد أهل السنة الجماعة للإمام اللكائي وغيرها كثيرة من الكتب العظيمة ومعنه اعتقادك وحكت الماميس ومع ذلك waxay u baahan kutubta sanad ay u baahan yihiin xadiisna way warinayaan marka lama dhihi karaayo culum al-hadith fuqahada iyo tafsiir bisa u baahani yani dad badan oo culimo ah ayaa u baahan inay macnihi wax ka soo wariyaan oo ogaadaan marka kitaabkan culumtaas ayuu macnihi isaga uu ka sameeysan yahay waxaana loo baahan yahay in qofka muslimka ah uu ku baraarago ogaado kitaabkan manduumada dad badan ayaa macnihi sameeyay oo manduumooyinka way badan yihiin oo la sameeyay usul al-fiqh manduumaat ayuu leeyahay sharx warqaadka oo kale wad ogtihiin naxwaha naftiisa waxay leeyihiin manduumaat ay leeyihiin marka waa la sameeyay dad badan oo culimo ah manduumaadka sameeyay oo si dadku ay wax ugu fahansiyaan culumtana waxaa la yiraahdaa wax ceeb ma leh hadii la qaybiyo aqsaam al-ulum kuwa qaar oo aad u wareera waxay ku leeyihiin saddex ilaaha jirta la yiri tawxiid al-uluhiyya iyo tawxiid ar-rububiyya iyo tawxiid al-asmaa wa sifaat marka saddex ilaah ma jirto ilaah waa hal laakiin islaaxaadka la sameeyay dadku un baa macnihi wax lagu baraaya ee ma aha macnaheedu in saddex ilaah inay jirto طيب marka sheekhu intaasi waxaan u sheegaynay un ka muqaddimo ahaan ayaan u sheegay bal in lagu baraarugo markaysa qof walba muslim ahna uu barto cilmigan waxa aad aan ula yaabaa 2005 markaan halkaan imid iyo wixii ka dambeeyay aan arkay axaadiista sida ay yani loo nashriyay axaadiisu daciifa oo mawduuca dadku inay aad ugu wareereen in la yiraahdo xadiidkan iska hubi xadiidkan ma saxna xadiidkan waa xadiid daciifa sanadkiisa waa sidaas oo kale in markii la tilmaamay
dadka ay u maleyn axaadiis oo dhan ba in la daciifinayo. waxaa markii oo aad u nashray fadaa'il acmaalka oo kale, siyaamka axaadiista kusoo aroortay, qur-aanka axaadiista kusoo arooray oo tiro badan leh oo kuwa saxan. fadaa'il acmaalka waad ogtihiin inta badan axaadiis horta nimankan tabliiqiyiinta la yirahday kuwa badana kala nashriya. xadiidku ma loo adeegsan karaa fadaa'il acmaalkana iyadu waa masale kale oo u baahan in la ogaado. culimada islaamku xadiidka haddii daciif uu yahay sidiisa banaanba waxay yidhaahdaan xadiidka daciifka ah ma la daliilsan karaayaa lama daliilsan karo waa dood. sida saxda an waxay tahay xadiidka daciifka ah inuu inooga filan yahay axaadiis saxiixa. xadiid marka maxaa la yidhaahdaa? xadiidku culimmadu way qeybinayaan, waxaa loo qeybiyaa iqsaam kala micnihii kala duwan. xadiid mutawatir ah iyo xadiid oo aan mutawatir ahayn oo axaad ah, labadooduna waa la daliilsadaa. xadiidka mutawatirka ah culimmadu waxay leeyihiin waa midka ay wariyeen dad aad u tiro badan axmed xadiidka hadda aan soo tilmaamay man kadaba caleyya mutacamidan oo kale. ayib ilaa iyo 70 raawi ka badanaa rawi sallallahu alayhi wasallam. shardi maaha inay 70 noqdaan, way badan karaan waana garaan karaan, laakiin shuruudiisa waxay tahay inay wariyaan dad aad u tiro badan la caado ay diidaysa tawaatu maca al-kadhibi, inay been isku raacaan. lianna ummadda nabi maxamed been iskuma raacayso. nabigana wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tajtamicu ummatii cala dalaala. waxaa marka qeybtaasi waa yani waxaa la yihahdaa xadiid axaadkana waa xadiidka hal saxaabi keligii uu wariyo, hal saxaabi ayaa wariyey. xadiidka saxaabi keligii uu wariyo tusaale ahaan waa xadiidka cali bn abi aalib yowm alkhaybara, calanka waa tii loo dhiibay, wallahan ku dhaartay low yahdiyaka allahu bika rajula waaxida khayru laka min xumri nacam. hal qofaa wariyey. abaa cubayd ibn jaraaxa waa tii baxreyn loo diray. nabigu wuxuu leeyahy alayhi salaam wallahi faqri idinkama baqanayo, laakiin waxaan idinkaga baqanaya in dunida laydin siiyo fatanaafasuuha kama tanaafasuu wa tuhlikakum kama ahlakathum. siday uga tartamaan ummadii idinka horreeyey xoolaha inaad uga tartantaan kadibna laydin halaago sidii loo halaagay kuwa idinka horreeyey kale. taana waa qeybtii labaad. muscab bin cumayr safir alawal ila lmadiina keligiisaa la diray. abu muusa alashcari wa mucaad ibnu jabal yasira walaa tucasira. mucaad waa tii lala diray waxa ugu horeeya dadkaad ugu yeertaa noqoto laa ilaha illa allah, hadday ku tala yeelaan riwaayada bukhaari. ayib axaadiista kulli waa axaad. qolooyinka caqlaaniinta la yihahdo axaadiis alaxaad caqiide lagama qaato. culimada kutubay ka qoreen hadda lasna bisabab, laakiin waxaa micnihii meeshaas ayadaad ogaanaysaa xadiidku markuu axaad uu yahay isaga naftiisa shuruuddiisii waa shuruudda xadiidka saxiixa ah ayuu isaga naftiisa la mid yahay. marka xadiiثul axaad cilmiga marka yani waa laga qaataa. qolooyinkaas ku daba dhiganna ayagu wax badan hadda nagalama jiro. xadiidka mutawatirka marka waa taas aan micnihii aan tilmaanay oo sanadkiisu saasuu micnihii u xariisan yahay, dad badanna way soo wariyeen. nin weliba xadiidka mutawatirka wax ka wariyaan waxaa loo fiiriyaa shuruudihii xadiidka saxiixda ah oo mar dhow imaan doono ayaa isaga naftiisa loo fiiriyaa, oo lama dhahayuun qofkan isaga waa u soo wariya ha la iska qaato, ayadoo sax ma aha. qeybta labaad waxay tahay qofka waxa wariyey raawiga iyo murwiga xagga sanadka iyo isna waa inoo imaan doonaa insha allah, waan sheegi doonaa. marka qeybta labaad waxaa waay xadiidka saxiix inuu yahay, qismi maqbuul inuu yahay ama qismi marduud inuu yahay. maqbuul markii la yirahdana axaadiis saxiixa soo hoosgalaysa, marduud markii la yirahdana axaadiis daciifa. aqsaamta ay laheed oo dhan halkaasay soo wada galayaan. sheekuna qeyb ka mid ah ayuu meeshaan ku tilmaami doonaa. waxaad ogaataa naadimkan marka isagu wax badan kitaabkan waa kitaab bilow ah oo looga talagalay ardayda bilowda inay wax ku bartaan. wuxuu sheegayaa un 37 abyaad oo isaga tirin doonaa oo iska fudud. 37daas marka oo looga talagalay madkhalkii yani meesha laga gelaya looga talagalay. marka gudaha ayaan ku faahfaahin doonaa waxa hadda aan sheegahay oo dhan haddii alla subxaana wa tacaala uu yidhaahdo. sheekhu kitaabkiisan wuxuu ku bilaabay abda'u bilxamdi musalliyan calaa muxamadin khayri nabiyi ursila. abda'u waxaan ku bilaabayaa bilxamdi ayaan ku bilaabay. abda'u waxaan ku bilaabaya bilxamdi ay abtada'u nadmi haada, nadmigaygan waxaan ku bilaabayaa
bixamdi illaahi ayaan ku bilaabay. walxamdu huwa hanaau, xamdiga marka waa ammaan alle subxaanahu watacaala, lanno farqi ayaa u dhexeeya hanaha alle subxaanahu watacaala iyo shukrigiisa, sida ibnu qayim aljawsi in badan buu u sheego. waxaa way huwa hanaau bilqowli اlmaxmuudi bisifaati almutacadiyati wallaazima. culimmadu saasay ay ku tacriifiyaan. marka musaliyan kaasna waxaa waaye waa xaal ayaa laga cabiraya. marka xaal aan ahay calaa muxamedin mid ku salinaya. ayib abda-u waxaan ku bilaabayaa ay abtadau waxaan ku bilaabayaa abtadiu waxaan ku bilaabayaa nadmi hada abda-u bilxamdi ay abtadiu binadmi hada bilxamdi illaahi. nadmigaygan waxaan ku bilaabaya ilaahay u mahad celintiisa ama ammaantiisa ayaan ku bilaabaya. musaliyan xaal aan ahay calaa muxamedin mid ku salinaya nabigan moxamed calayhi salaatu wasalaam, mid ku salinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam. ana sayid nnaasi yowma alqiyaamati, xadiidka saxiixeynka ku jiray ee bukhaari iyo muslim. marka xaal waaye kaas ayaa laga cabiraya. musaliyan xaalna aan ahay calaa muxamedin mid xaal ku salinaya khayr nabiyi ursila, nabi lasoo diray midka ugu kheyrka badnaa. ursila alifkaas ku jira marka waa alif liطlaaqa la yihahdaa, nadmiga unbuu toosinaya keliya. khayr nabiyi ursila, nabi lasoo diro midka ugu kheyrka badnaa anigoo micnihii ku salinaya calى muxamedi khayr nabiyi ursila. yani laa shaka nabiga calayhi الsalaatu wasalaam huwa khayr nabiyi ursila lithaqalayni, macnihii isaga ayaa ugu khayr badnaa nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam. wa akramahum wa afdalahum calى sayid اlkhalaa'iqi ajmaciin salawaat اllahi wasalaamuh calayh. khayr nabiyi ursila, nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ahaa marka midka ugu kheyrka badnaa ayuu ahaa. wuxuuna tilmaamay xadiidkii saxiixeynka ku jiray ucطiitu khamsa lam yucطahuna axadu min alambiyaai qabli. shan ulxad oo aan la siinin ummadihii iga horeeyey ayuu leeyahay nabiga waa lasiiyey calayhi الsalaatu wasalaam. shanta maxaa ka mid ah ucطiitu khamsan, shan shay ayaa lii siiyey lam yucطahuna axadu min alambiyaai qabli, oo aanan la siinin ambiyadii aniga iga horeysay mid ka mid ah. midda koowaad waxay tahay nusirtu waxaa laygu gargaaray birucbi, yani masiiratu shahrin, meel bil loo socdo in gaaladu ay igaga argagaxdo. wa jucilat lii, dhulkii waxaa lagaga dhigay alardu dhulka masjidan wa tahuura, dhulkiina taahira lagaga dhigay. oo qolooyinkan dhahaya dhul gaalaan joognaayo, madarasooyinkii iyo meelihii gaaladaa marmarto ma dukan wax la mid ah, ma rabaan inay salaaduhu dukadaan. oo nabiga calayhi salaatu wasalaam dhulka haddii nijaaso cayn oo aan loo jeedin, nijaasada caynteeda haddaana loo jeedin, xaarkii eyga iyo kaadidiisii iyo wixii haddaana loo jeedin, ilan xayawaan waa taqaanaana waxa ma'kuulatu laxam waxa ah oo hilibkooda la cuno, saaladooda waxa ay tahay xukunkeeda waa naqaanaa. oo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ti uu tilmaamayey helada geela iyo markuu tilmaamayay helada ariga iyo meeluhu ariga lagu xareeyay iyo meeluhu ku dukada uu yiri meel uga hadlay waa ognahay calayhi salaam. marka dhulkii waxaa lagaga dhigay masjidan wa tuhuuran ayaa laga dhigay. wa ayumaa mid waliba oo ayumaa rajulin, nin waliba oo min ummatii ka mid ah, qof waliba oo ummadayda ka mid ah, adraktuhu salaa falyusalli. marka nin waliba oo ummadayda ka mid ah adrakathu salaa falyusalli. wa ayumaa rajuli min ummatii adrakathu salaa, mid waliba ummadeyda ka mid ah salaada ay soo haleesho waa uu ku dukanaya. wa uxillat lilghanaa'im, hanaaimtii ayaa lay baneeyey. wa kaana الnabiy yubcathu ilaa qowmihi khaasa wa yubcathu ila الnaasi wa bucithtu ila الnaasi kaafa. marka saasuu leeyahay. ayib ucطitu khamsa lam yucطahuna axadu min alambiyaai qabli. nusirtu birucbi masiirata shahrin wa jucilat lii lardu masjida wa طuhuura. wa ayumaa rajuli min ummatii adrakathu الsalaa falyusali. wa uxilat lilghanaa'imu. wa kaana الnabiyu yubcathu ilى qowmihi khaasa wa bucithtu ila الnaasi kaafa wa ucطitu الshafaaca. marka nabi waliba oo lasoo diro ummadiisa ayaa si gooni loogu diri jiray, aniga laakiin dadka oo dhan ayaa laysoo diray, waxaana laysiiyey shafeecada.
marka intaasi nabiga ayay khaas u ahayd calayhi الsalaatu wasalaam. ثuma sheekhu intaas kadib wuxuu yihi abda-u bاlxamdi muصaliya calى muxamadi khayr الnabiyi ursila. abda-u waxaan ku bilaabaya bilxamdi ayaan ku bilaabaya musaliyan xaal anigoo mid ku salinaya muxamadin ayaan ku salinaya nabi maxamed alayhi الsalatu wasalam maxamedkaasoo khayr الnabiyi ursila ambiyada la soo diray midka ugu khayrka badnaa ahaa. qowluhu musanif raximah اllah kadib intaas wuxuu yihi wadii min aqsaami اlxadiiثi cidda. wadii iyo min aqsaami alafka meesha ku jira iltiqaau saakinayn waa la cunaa. wadii minaq aad leedahay marka isku qabanaysa wadii min aqsaami اlxadiiثi cidda. diidaas marka ismi ishaaraba aan ka dhigno haddii la doono oo ismi ishaara haddaan ka dhigno kitaabka ma horaa loo qoray mise sheekhu gadaal uu ka dhamaystiray. diida marka waa mubtada haddii la yihaahdo ay haadihi min aqsaami اlxadiiثi cadiid saasna waa la dhihi karaa. oo midda labaadna ismi ishaaro keliya ka dhigo waxaa tidhaahdaa ismi ishaare haddii u yimaado mubtada khabarkiisi maxduuf hadduu yahay haadihi soo maha iyadu. marka laakiin xagga kaleba u dhig haddaad doonto waxaa tidhahdaa wadii midani mubtada ka dhig ay haadihi min aqsaami اlxadiiثi midani waa aqsaamkii xadiiثi cadiida yani cidda. wadi midani min aqsaami اlxadiiثi cidda. waxaa leedahay marka si aad isu waafajiso wadii midani min aqsaami اlxadiiثi xadiidka aqsaamtiisa cidda way badan tahay. wa kulu mid waliba waaxidin oo ka mid ah aqsaamtaas xadiidana ataa waa imaanaya waxadda bimacnaa sharxiisii waa imaan doonaa. ataa marka sheekhu muxuu yihi ilan ficilkan ataa waa ficil maadi isagana wuxuu ka hadlayaa wax imaan doonee ataa meesha muxuu u keenay. ficilka maadi calaamadaha lagu garto ayaa meesha ka muuqda. ataa ilan waa ficil maadi asalkiisu. ayib ataa marka waxaad ogaataa ilaahi subxaanaه wa tacaala qur-aanku wuxuu ku leeyahay ataa amru اllahi ay sayaأtii amru اllahi. ila markaas waa yimid waa imaan doonaaha markaas ayada loola jeedaa. ayib wuxuu leeyahay marka wadii midkani min aqsami اlxadiiثi waa xadiidka iqsaamtiisu cidda way badan tahay. wa kulu waaxidin mid waliba ataa ou sayaأti waa imaan doonaa xadda yani sharxiisa waa u imaan doonaa. ataa ay habata dikruhu ismuhu ay sayaأtii waxadda isaga waxaa waye bitashdiid اdaali oo xadda la yihaahdo ayaa loola jeeda. xadka marka waxaa waaye anahu mafcuul macahu ayuu markaas isaga naqanaya. marka min aqsaami اlxadiiثi minta meesha ku jirto maxay tahay ayado mintaasi haddii aan dhahno khabarku mubtadahiisa min haddii aan dhahno taxmilu ay libiyaani litabqiid ay noqonaysaa. litabqiid ayay noqonaysaa. marka wuxuu ula jeedaa yani way imaan doontaa jamiica aqsaam alxadiiثi fi lmanduumati haadihi id ciddatun ayadoo tiro badan ayaan iqsaamteeda meeshan ku keeni doonaa. saasay micnaheedu ay noqonaysaa. xadka marka luqada ayaa loola jeedaa. marka wa xaddun luqatun waa manacuna la yihahdaa. wa istilaaxun xagga istilaaxa culimada si ay dadku wax u fahansiiyaan waxay dejiyeenna waxaa la yihahdaa qowlu daalun calى maahiyati shay. maahiyat shay waa waxa kaa tusinaya wa minhu taamu wa minhu naaqis. marka laakiin meeshan hadda waxaa loola jeedaa almuraadu huna tacriifka ayaa loola jeedaa. xadka hadda tacriif ayaa loola jeedaa ay kula qismin qismo waliba ama qeyb ka mid ah ataa maca tacriifihi maca tacriifkiisu la imaanaya. walwaaw huna marka waxadda wowga ku jiran waxaa waaye lilmaciya waa wow limaciya waay ay ataa wa macahu tacriifuhu waxadda wowgaas marka intaas buu faa'ideynaya. walaa tufiidu tartiib marka tartiib ma faa'ideynaya isagu. fataaratan yudkuru alxaddu awala huma muxadadu wa taaratan caks intaas waa noqon karaa. ataa marka waxaa waye ishaaro waaye ishaaradaasoo micnihii wax ku sahlaysa un gabiga iyo ku sahlaysaa wax kale meesha uguma jirto. gabiga unbay micnihii ku sahlaysaa. marka intaas yarta ayaan maanta ku kaaftoomayna haddii alla subxaana wa tacaala u yidhaahdo. waxaan ku celinaynaa marka abyaadka iyo habka loo akriyo wadii min aqsami اlxadiiثi cidda wa kulu waaxidi ataa waxadda.
ayib wuxuu leeyahay sheekh markow bilowgiisii hore abda-u bilxamdi musaliyan calى muxamadi khayr الnabiy ursila wadii min aqsaami اlxadiiثi cidda wakulu waaxidi ataa waxadda wallahu subxaanaه wa tacaala aclam. intaas ayaan markaa ku ekaanayna insha allah. beri ayaan halkaas ka wadi doonaa iqsaamka xadiidka صaxiixa ah micnihii halkaasaan ka bilaabi doonaa iyo shuruudda uu leeyahay. subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk.